قلوب زادها الحب نقاء قد أتينا وبشوق للقاء نطلب الله علوا وسنا إننا قوم هدي آد حديها جارتي هكو قنع وحكه سيا وناجي حريك آد إلهي لليذهي وايو قول حمد أقول ريس نلشو وحو كبلا ما إن قفك كقول دريستو إنو لحرير إلهي مركز تاو آد قول جارتو إلهي حس أو حسوسو ونمهد علي مرنبا هكو قنع أرمها عادي قوذا أرين كستكرادي جانس آد أقفا إذي ستد dadkana uga dhax muuqatid dadku cid wax u bilowda ayay laayihiin adigu bilow cid kula dhamaysa waayimaysidee sida dhagaxu marmar ugu culus yahay dheemanka ayaa sidaas darteed dadka waxaan ka fiirinaynaa dhaqankooda ee ma ahan magaca ama booska ay joogaan farxada dhabta ah ma ahan in aadan oonin ama aadan murugoon ee waa inaad raali ku tahay wax walba oo maalmuhu kuu qariyaan kuna mahadnaqdaa adiga oo dhoola cadaynaya saaxiibtinimadu waa magaalo xiran oo kale furaha kaliya oo lagu gali karana waa daacadnimo wanaag qabo abaalmarinna cidnaha ka sugin waa sirta guusha iyo dadka garaadka leh duulista diyaaradda waxaa ugu adag marka dhulka laga kicinayo wadada ugu fudud aad ku ilaabi kartid wixii hore waa adiga oo ka fikira aayaha soo socda wax kasto aad qabanaysid ha noqdo wax aad ku qanacsan tahay daacadnimada dhabta ah uma baahno cadayn guul daro waxay ku bilaabmatay maalinta aad isku daydid inaad raali geliso dadka oo dhan waxaad qaban kartid haddii aad ku ekaatid marnaba dhaafi maysid waxaad tahay mugdi inaad wax ka sheegtid ayaa kuu dhaantaa inaad hal shumac daaratid qofka dhabta u guul daraystay waa kan naftiisa ka badiso intuusan cadowgu ka badin haddii aad doonaysid inuu ilaahay qariyo ceebtaada fadlan ilaali dadka kale ceebahooda haddii aad dembi ku dhacayd ha u sheegin qofna maxaa yeelay bini'aadamka badankii wax ma qariyo ee ilaahay ayaa wax qariya oo dhaafa in aad isdhiibtid waa furaha guuldarada hooyadu waa goob waxbarasho dadka ay soo saartana aayaha dambe ayay dadka hogaamiyaan adduunku waxaa kaaga filan saaxiib dareemayo xanuunkaaga adiguna kiisa aad la dareentid saaxiibka dhabta waa kii kula jeclaada wanaaga uu ku jiro mar kasta nalka aad ifsatid dadka kalena waa ka iftiin qaataan haddii aad doontid in uu kaa joogsado walwalku ha fiirin dhibaatooyinka ee fiiri nimcooyinka ilaahay ku siiyey dhabarjebin kasta oo gadaal kaaga timaada waa tii hore kuu sii qaada waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan inta aan ku kulmi doonno muuqaal caynkan oo kale waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu نطلب الله علوا وسنا إننا قوم خلق